Kenya waa dal ay garanayaan dadka Soomaaliyeed isla markaana ganacsi xooggan ku leeyihiin dhul ballaaran oo alla makaniyana u dhaco xitaa uma baahna in laga sheekeeyo dalalka uu xad kala leeyahay iyo magaalada caasimadda u ah waxaana la dhihi karaa waa dalka ay dadka ugu badan ee Soomaaliya ka tagay ku nool yihiin waxaana xerada Dadaab oo kaliya laga diiwaan galiyay dad kor u dhaafaya 200,000 ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan dalka laga yaabo inaad tanaad uga aqoon badan tihiin dalkan wuxuu ku fadhiyaa bad ka badan 500,000 kiiloomitir isku wareega waxaana ka dhul weyn Soomaaliya Kenya waa dalka 48aad ee ugu dhulka weyn caalamka halka Soomaaliya tahay dalka 43aad qiyaastii u dambeysay waxay sheegaysaa dadka dalkan inay gaarayaan 52 milyan isla markaana yahay dalka 27aad ee ugu dadka badan caalamka balse markaan Soomaaliya waxay fadhidaa kaalinta 74aad waxaana dadkeeda lagu sheegaa 15 milyan Kenya waxay xornimadeeda heshay 3 sano kadib markii ay Soomaaliya xorowday waxayna dabaal degaan Kenyaanku 12 December oo ah maalinta ay ka xoroobeen Ingiriiska 1963dii waxaa ra'iisul wasaare ka noqday dalkan Jomo Kenyatta asigoona 1964tii noqday haddana madaxweynihii ugu horeeyay Kenya wuxuuna xilka hayay ilaa uu ka geeriyooday 1978dii waxaana xusid mudan inuu dhalay madaxweynaha haatan Kenya xukumaya isla markaana u malabsanaya badda Soomaaliyeed Ingiriisku wuxuu dalkan si xoog iyo maquunin ah ku siiyay dhulka Soomaaliyeed ee haatan la yiraahdo gobolka Waqooyi Bari dadka dhulkan dega waa Soomaali waxaana dhacday gumeystigii Ingiriiska inuu codbixin ka qaaday ay ku kala dooranayaan Soomaaliya iyo Kenya waxayna dadka Soomaaliyeed ee dhulkan degan doorteen inay Soomaaliya la midoobaan maadaama ay yihiin Soomaali laakiin Ingiriisku waa uu iska indha tiray wuxuuna ku daray Kenya waxayna waqtigaasi Soomaaliya weysay dhulka weyn marka la isku daro dhulka ay ku fadhiyaan Qatar, Imaaraadka, Bahrain iyo Kuwait orodyahanada Kenya ka soo jeeda waxay sumcad xooggan ka haystaan dadyowga caalamka maadaama uu yahay dalka ay ka soo jeedaan qaar ka mid ah orodyahanada ugu caansan dunida sida Wilson Kipsang oo ah orodyahan rikooro badan dhigay kuwa kalena burburiyay midda gaarka ah ayaana ah inay orodyahanadan ka soo jeedaan dhammaantood hal qabiil oo la dhaho Kalenjin tirkoob lagu sameeyay 2009kiina noqdeen 5 milyan oo ruux qabiilkan ayaana ah kuwa iska dhaxla hibadan waana kuwa quuta oo kaliya cuntooyinka tamarta kordhiya dadka dalkan badankoodu waxay haystaan diinta Kirishtaanka waxaana lagu sheegaa dadka haysta 84% halka dadka haysta diinta Islaamka lagu sheego 10% laga yaabay inaysan hubanti ahayn oo dad dhinac u janjeera sameeyeen magaalada Nairobi waa midda ugu weyn Kenya uguna saxmadda badan waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool wax ka badan 3 milyan waxaa kaloo jiraan 4 magaalo oo ah marka laga reebo Kenya kuwa ugu waaweyn Kenya sida Mombasa, Kisumu, Nakuru iyo Eldoret oo ah magaalada lagu soo doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaana laga adeegsadaa dalkan lacagta shilinka Kenya oo la sameeyay 1966dii Nairobi waxaa la sheegaa in la aasaasay 1899kii wuxuuna magaceeda ka soo jeedaa luqadda Masaayda waxaana loola jeedaa magaca Nairobi meeshii qabowbeed ama biyaha qabow lahayd sababta ay magaaladan ku aasaasmatay magaalana ku noqotay ayaa ah jid tareen uu Ingiriisku ka dhisayay Uganda iyo Kenya waxaana jidkaasi tareen laga bilaabay 1896dii magaalada xeebta ee Mombasa asigoona sii marayay halka maanta la yiraahdo Nairobi sida guud waxaa dalkan looga hadlaa 68 luqadood waxayna dadku badankoodu ku hadlaan Sawaaxiliga halka luqadda Ingiriiska tahay luqadda rasmiga ah ee wax lagu barto dadka dalkan waxay u kala qaybsamaan 42 qowmiyad waxaana sida guud loo qaybiyaa 3 oo kala ah Bantu, Nilotic iyo Cushitic qowmiyadda ugu ballaaran waa Kikuyu oo dadka dalkan ka ah 22% balse dadka Masaayda waa kuwa ugu horeeyay ee nidaam iyo maamul ka bilaaba Kenya waxaana la sheegaa xitaa inay gumeystaha la dirireen dalkan waxaa ka soo jeeda Wangari Maathai oo ah haweeneydii ugu horeysay ee Afrika ee la siiyo abaalmarinta Nobel Prize waxayna abaalmarintan ku heshay doorkii ay ka qaadatay difaaca xuquuqda haweenka iyo ilaalinta deegaanka waxayna u geeriyootay cudurka kansarka 2011dii Kenya waxaa laga helaa 60 beer oo wadani ah wuxuuna qayb ka yahay dalkan dalalka Afrika ee tirada ugu badan ee xayawaanka libaaxa laga helo sida Tanzania, South Africa, Botswana, Zambia iyo Zimbabwe wuxuuna dalkan qayb ka leeyahay harada Victoria oo sidoo kale dhacda Uganda iyo Tanzania sidoo kale Kenya waxaa laga helaa haro la yiraahdo Turkana sidoo kale wuxuu leeyahay dalkan buur la yiraahdo buurta Kenya oo ah buurta labaad ee ugu dheer Afrika
waxaana ka dheer oo kaliya buurta Kilimanjaro oo dhacda dalka Tanzania.